maxay dantu ciishay wiiloo dulqaad iyo deeq lahaaya dadkuna deqon moolay mar waxay dhaheen waa kaa isagoo gaari ka shaqaynaya oo muuqaal ayay nin ay ku tilmaamay marna waxay dhaheen Mexico ku xanimeeyay marna waxay dhaheen America lagu xiray marna waxay dhaheen Hargeysa loo celinaya marna waxay dhaheen Jani iyo ciri meel u dhiga lama hayo nolol iyo geerina lagama warhayo ma aha si xaqiiq waa sidee xaqiiqo intan telefoon waxay waraa oo intan diray السلام عليكم أصحابتي شرفت لما كنت أدون كجوكتان الله وحنا كرجيني عافمات عبادة سبني عمل خير أنتي نورو جوكتك على بركوبة وسوف ريست أنتي ندم لك سو بيرتين أجوجين وهلا سبسكرايب تسيرها لأن بدأ أصحابتينا إسماعيل دنا فنان سوماليات ورير سودان عن سلاحين ها تنصح على ديس هي حقيقة ضدك يكون رسمي أيام واحد دوني يا ومن البرنامج كان هنا نقول بالأول إسماعيل دنا سودان باهرتا شرعي يكون كيسك halkaas waxa weeye muddo joogay dabeetana Mareykan buu tagay dadku siyaabo kala duwan bay u dhigayaan qaar waxay lahaayeen Mexico lagu xiray qaar waxay lahaayeen Mareykan buu ka shaqeeyaa qaar waxay lahaayeen hadba xaalad baa lagu tilmaamay waxyaabo badan oo waxa jira isweydiin mudan shalaba hadii muuqaal kan lagu tilmaamayo qaar ay lahaayeen uu shaqeystay Mareykan buu joogaa maanta see macquul ku tahay inuu Mexico ku xirnaa ninka Ismaaciil Danan hay waa u jeedin fanaanimada ugu darsaday makaanignimo xirfada loo baahan yahay Ameerika markay maad xirfad la jannin weeyaa kala turka hadaba waxa aniga caloosha ay taabtay oo yaani marka aan arkay muuqaal uu soo duubay iyo hees uu soo qaaday dareeri galiyay in la yiraahdo Mukhtaar Daawus oo Ismaaciil Danan walaalkiisa hees walaalkiisa uu qaadayo oo uu tilmaamayo waqti adag iyo xaalado inay isbedelayaan yaani shakhsi walaalkii oo xiisay waxaad kala baranaysaa kii ku xun iyo kii wanaagsan يعني رياضة هاستا مركان كيف واندر بدين ولا كي وبهليو حالك أنا نوينه والواحد بالحقيقة هذه حالك سيدي فنانين غير مريكان لا هذا واحد يقول بدينكم آخرنا لو حسمة تركتان أدون وحسمة ترتان واحد يقول لي تام جيراني نيك حالة دي سمان الله وشاري سو نوع عفاض قوي سمير سويد جوجان وجيني بالعكس سنصير واحد اللي رياسين كور رنا نيك كان حبسي بكوجري بالي حبسي كمان لوير وقبتان kasoo saartaan baan ku yiri saati waxa la yirtay tan loo yar badhaafto may reerkiisi baan ku yiri kullu fanaaniintu ku iscaawanaya ma aha wax reerkiisa oo ka camal waa war reerkiisina xaaladaha wax kama qaban karaan bal fanaaniinna wax kama qaban karaan oo xaalad inta aad moodayso ka weyn hase ahaatee wixii aan isweydaarsanay xaqiiqda inta aan gelin heesta Mukhtaar uu qaaday walaalkiis Ismaaciil ee qalbiga ay taabatay يا خشوع وقبل يسده وحيسي وحي لأنه كذا وإنه كذا جيسان انت التليفون وحي وراه وانت نظري اخبار وحكم هي وانا كوكو بيجلا مختار صاحب واحد دريمة يا واحد تبنيس إلهي ولا لك هكون نبت كانوا إسماعيل دنا وانين مسكين وعاف قاون وفنانين تان آد كوسة بتقريه كمدا هذا بقى إسماعيل مركب ومرايكن كتجي وحو شاكت إنه سومال لكيم بربلان بحال كهرت أقام هرين وحي ورانو سومال لان بان كيمي فنان بان هاي سويدن بان سومري يعني واكا فيوس كي برشاد وحران واكوا هاسهاي نينك هالكاس على قراعي يا نينك هالكاس ببلاي وقام هرين بقى oo de Somaliland dhibaatada ka jirta oo kala keentay maxay tahay baa la oranay badanaa dadka qurbaha aada meelaha ay sheegtaan meelaha dhibaatooyinka iyo xaaladaha adag ee geyga Soomaaliyeed ka arooriya Somaliland waa watan bal Soomaaliya ma nihino ictiraaf baan raasanaynaayo annaga isku filan marka ninka Ismaaciil leeyahay dhibaato halka uga horeeyay sababtu uu xiran yahay waxa weynina kanu inuu yahay meel amni wa amaana leh inuu ka yimi mana aha mid Mexico jooga muuqaalkii hore laga soo duubayay gaariga ee la lahaa waa Ismaaciil Danan shaqo Mareykan ka wada taraagba yani waa nin u jeega ag weey laakiin isaga ma Mexico tan la tilmaamayo oo la leeyahay waa ku xiran yahay ma aha mid jooga ninkan wuxuu joogaa meesha la yiraahdo
United States of America. haddaba eheladiisii iyo qaraabadiisii lacag kasta oo lagu bixin karo oo lagu furdaamo la isleeyahay ama lagaga soo furtay meesha la isleeyahay oo xaaladiisa lagu geli karo ayaa la galay, waxna waa socon waayeen. marka ilaahay nimankaa cadowga ninkaa ka soo sii daayo, laakiin xaaladda isagaa sabab u lahaa inuu galo. isagaana wuxuu yidhi anigu waxaan ahay nin ka yimi Somaliland iyo Boorame, xaqiiqdana waxa weeye halkaa xabsi ugama horreyn. marka dadka sheegaya inuu Mexico joogo, inuu Mexico ku xiran yahay, in xaaladiisu ay saas tahay, inuu mar shaqo bilaabay maaha. waxtarkiisana waa la isku dayay. dadka fanaaniinta dhaliilaya caayaya leh fanaaniin maxay waxtar waayeen. xaalad inta fanaaniin ka weyn lawyerna waa loo qabtay, gaaladaasaa laga warsugaya. haddii ay ahaadaan kuwo celiya oo Hargeysa ka dejiya, iyo haddii ay ahaadaan kuwo ilaahay kasoo furdaamiyo oo sii daayay. laakiin isaga xaaladiisu ma aha mid Mexico ku sugan ama dee xaalad xanuun iyo wax kaleeto tilmaamo dhibeed ay haysato, ee waa ninka ku xiran halkaa iyo xabsigaas ku yaala America. dadka fanaaniintaana yaan la eedan, waxba kama aysan hakran. ehel iyo qaraabo iyo qoys wixii ugu dhowaana waxba kama aysan hakran. Ismaaciil Danan oo saaxiib haddii xataa uu oran lahaa aniga dad Sweden la yiraahdo waan ka imi, dee sharci kuma lahayn. niman waxaa jira baasaboorada yaryar iyagoo haysta Maraykanka u tahriibay dhowr sano ka hor bay ahayd oo qaarkood aba garanaya. hadhowdii waxa lagu yiri waa laydin celinaya, dalkiini waa laydin celinaya. nimankii marka waxay dhawaan anagu Sweden baanu ka nimi, sharciyada yaryar bay haysteen oo Sweden baaba soo dalbatay oo qaarkood loo soo celiyay. marka Ismaaciil hadda hadduu oran lahaa anigu dee sharci baan leeyahay oo Swedish baan ahay oo halkaasaan ka imi oo Maraykankan usoo shaqo doontay, mid sharci ku leh ma ahayn Sweden. marka anigu waxaan oran lahaa tala aan ku bixin lahaa ninkaa dhalinyarada ha loo yaro adag ha loo qabto. wax kasta oo community-ga Soomaaliyeed ay u qaban karaan oo si isku duubni ay ugu qaban karaanna ha loogu qabto. anigu shakhsiyadiisa kolley intaa ninka aan ka arkay nin afgaaban u degan, cid daliil aan la doonin, fanaan Soomaaliyeeda ma fahanteen. marka ninka ha la caawiyo, masiibada iyo gaaladaana ilaahay ka soo furfuro. in dhibaato igu filan waxa weeye farqu ku haystaa. deena macal cusri yusra, xaalad kastoo adagna khayr baa ka dambeeya. halkaa wuxuu u aadayo Maraykanka ugu ambabaxay, Swedishka ku adkeeyey. marka halkaasuu qabow isiriyo xaaladda ka faa'iideyso. dee taladuna mar bay ahayd oo kuwa la taliyaan xunxunan waa la taliyaa. waxaa tahay sheegay dheheen, waxaa tahay sheego interviewga inaad ka saxdaan baad wiilka. marka waxay ahaataba wixii dhacay haatan iyo dan ninka hala garab istaago community-ga Soomaaliyeed iyo kuwa jaaliyadaha ku jira, si kastoo ninka wax loogu qaban karo oo ugu nagaan karo halkaa korankeedii hawsheeda hala galo. barnaamij kaleetana gacalo inta dib ugu kulmayno warsani war khayr. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.